عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سو دوادا dhammaan asxaabtan hawada ka xiriirno waa cashirkii saddexaad ee fiisigiska galaaska 12aad halkan waxaan ku qaadanaynaa tusaalooyin ku saabsan xeerka Hooke's page-ka 7 ilaa page-ka 9 ee buuga muqarrarka ay ku yaaleen tusaalaha ugu horeeya wuxuu leeyahay what is the magnitude of the force required waa maxay xoogga loo baahan yahay to stretch 20 cm long spring si loo kala jiido moolo dhirirkeedu yahay 20 cm with a spring constant of 100 newton per meter xoog madoorsamo ay u baahan tahay uu yahay 100 newton halkii mitir macnaha 100 newton ay u baahan tahay si loo jiido 1 mitir kasta waxay u baahan doontaa 100 newton waxaa la gaarsiinayaa to a length of 21 cm waa kan moolada korafiiri dhirirkeedu waa 20 cm marka hore waxay u baahan tahay 100 newton si 1 mitir loo jiido dabcan waxaa la doonayaa dhirirkeeda in la gaarsiiyo 21 macnaha 20 ka hore ayuu aheeday hal baa lagu ziyaadinayaa 1 cm lagu ziyaadinayaa si dhirirkeeda uu noqdo 21 marka si halkan centimeter loo ziyaadiyo force-ga loo baahan yahay waa imis that's the question what is the magnitude of the force required xoogga loo baahan yahay sheeg to stretch 20 si looga jiido 21 loo gaarsiiyo dabcan 1 centimeter baa la jiiday soo ma hadda haddii 1 mitir la jiidi lahaa waxay u baahan leedahay 100 newton hadda laakiin 1 mitir lama jiidin 1 centimeter baa la jiiday saa ogtaana halkii mitir waa 100 centimeter marka waa boqolkii hal baan ka haynaa 100 centimeter waa 100 loo qaybsho waa 100 loo qaybsho marka 1 centimeter baan haynaa marka 100 kana 100 u qayb 1 newton baan u baahan doonaa insha Allah laakiin by calculation anagoo isticmaalaynaa xeerka Hooke's ayaan ka shaqeynaynaa marka xisaab ceegaa ka soo tag and let me choose my nice pen say solution and waxaan u baahanaa soomaha force marka Hooke's wuxuu dhahay force-ga wuxuu la mid yahay k lagu dhuftay x calaamada negative-ka direction kay sheegaysaa muhiim ah magnitude kale aan qaadano marka force-ga loo baahan yahay si hal cm loo jawaab noqon doona k imisay ku tahay halka koro eegde okay k-da waxay ku tahay 100 newton marka k-da bedel waxa ku bedeshaa 100 newton per meter lagu dhuftay waxaad bedeshaa sidoo kale x-da bedel waa 1 centimeter hadda laakiin 100 u qaybi waxay noqon doontaa 0.01 meter marka force-ga wuxuu noqon doonaa labadan isku dhufato waxa ku soo bixi doona 100 lagu dhuftay hadhowta meter buu la baxaa dhib ma laha laakiin 100 lagu dhuftay 0.01 waxa ku soo bixi doona 1 newton very good moolo dhirirkeedu yahay waxaan ka hadlaynaa waxay tahay moolo dhirirkeedu marka hore ahaa 100 centimeter una baahan 100 newton si 1 mitir loo jiido ayaa la jiiday oo 1 centimeter lagu ziyaadiyey marka force-ga loo baahan yahay muxuu noqday 1 newton buu noqday marka let's go next aan horu soconno okay example 4 tusaalaha afraad ayaa wuxuu noo yahay what is the spring constant muxuu noqon doonaa xugma doorsoomaha spring ay leedahay moolo that needs a force of 3 newton u baahan xoog 3 newton to be compressed from 40 cm si dhirirkeeda 40 cm looga soo celiyo 35 cm loogu soo celiyo by picture waxaan haysanaa moolo dhirirkeedu yahay 40 cm laakiin waxaa in dib loo soo celiyo to compress back oo dhirirkeeda laga soo dhigo 35 imisa dib loo soo celiyo malaynaysaa 40 bay ayada 35 dib loo soo celiyo macnaha 5 baa dib loo soo celiyo 5 cm dib loo soo celiyo waa ka displacement-ga la soo sameeyay waa 5 cm force-ga la adeegsada hore lagu sheegayo waa 3 newton waxaan u baahanaa marka spring constant amba k-dan u baahanaa okay by formula and by concept waa ku keeni kartaa oo by formula solution k-du waxay la mid tahay marka waxaad ogtahay force Hooke's law wuxuu dhahay kx marka k maxay noqday halkan x u qayb halkan x u qayb la dhac x u qayb is
marka sorry k waxay kula mid ahaa doontaa forcigii oo loo qeybshay x marka k waxay kula mid tahay okay forciga waa imisa marka dee forcigii waa 3 newton no problem loo qeybshay x ama displacementigii imisoo noqonayaa displacementigii dabcan waa 5 centimeter laakiin boqol aad u qaybinaysaa waxay noqon doontaa markaas 0.05 meter marka k waxay kuu noqon doontaa markaas k waxay kuu noqon doontaa ii soo qaba neecayga let me calculate 3 newton loo qeybshay 0.05 this is 60 newton 60 newton per meter mooladan waxay u baahan tahay 60 newton si hal mitir loo jiido waxay u baahan tahay 60 newton si hal mitir practice yar aan fiirina markaa very good halkan waxaan ku haynaa moolo dherarkeedu yahay calculationka hore waad iska tiri kartaa if you don't need it to get nice space you can delete this one wipe it you can wipe all this 60 newton baad soo gaata soo maa okay okay yes that's it okay waa ka oo kaydi waxay noo ahayd soo maaha forcigii oo ahaa 3 newton oo loo qaybiyo displacementigii 5 centimeter laakiin waxaan u qaybinay 0.05 u noqday meter marka kaydii tusaale hore kaydi waxay noo noqotay 60 newton per meter no problem ka marka practice-kan laba su-aal inuu yaan filayaa waxau yahay mid koobaad wuxuu ka hadlayaa waxaad haysataa moolo u baahan 20 newton si loo jiido 1 mitir waa moolo u baahan 20 newton si loo jiido 1 mitir ayaa waaba la jiiday boo dherig waxaa lagu ziyaadiyey 25 centimeter baa lagu ziyaadiyay displacementigan marka forciga la adeegsaday muxuu noqonayaa forciga la adeegsaday muxuu noqonayaa very good waa sidaan forci sida og tahay wuxuu la mid yahay kx marka forci wuxuu kula sii mid yahay kayda waxay ku eeday 20 newton per meter xtana waa 25 centimeter laakiin u qaybay 100 oo si meter u noqoto waa 0.25 meter dhib ma laha meter iyo meter was la bixi doonaan 0.25 lagu dhufto 20 maxaa soo bixi doona markaas okay haddii hal meter la jiidi lahaa waxaad u baahan leedahay 20 newton 100 centimeter waa meterkii 25 waa 100 rubceed 20 rubceeda marka u baahanayo ah 5 newton hadda labaan isku dhufato 5 newton marka soo bixi doonta 0.025 iyo 20 newton isku dhufo you will find 5 newton by concept na ku keeni kartaa direct okay practice labaad wuxuu yahay moolo ayaa la jiiday oo 10 centimeter baa lagu ziyaadiyey waa displacementigii forciga la adeegsadana wuxuu yahay 500 newton kaydi soo saar marka kaydi sababta waxay la mid tahay f loo qaybshay x marka kaydi waxay kula sii mid tahay f2 waa imisa waa 500 oo newton loo qaybshay x displacementiguna waa imisa waa 10 centimeter laakiin 100 u qaybi 0.1 okay meter k marka waxay ku noqon doontaa 500 waxaad u qaybisaa dabcan 5 bay noqon doontaa 500 loo qaybshay 0.1 500 loo qaybshay 0.1 that's 5000 newton per meter here waa 5000 newton per meter haruu soco bal okay aan horuu wadno tusaalaha shanaad ayaa wuxuu leeyahay
waxaad haysataa moollo waxaa lagu xiray shay culeyskiisu yahay 5 kilogram shaygan marka 5 kilogram shayga hoos buu u jiiday 20 centimeter buu hoos u jiiday marka forciga uu ku jiidana dabcan waa weightkiisa oo waa mg masska lagu dhiftay g gravitation acceleration due to gravity marka g-da 9.8 u qaado kayd soo saar marka hore waxaan u baahannahay intaan kayd soo saarin ka hor in horta aan soo saarano f-ta oo mg-da aan qiimaysano force waxay la mid tahay mg force waxay kula mid tahay m waa masska oo iska 5 kilogram no problem lagu dhiftay g-dana waxaa u qaadaa lagu dhihi 9.8 meter per second square f waxay kula mid tahay kuu soo bixi doonta 5 lagu dhifta 9.8 waa imisa 5 times 9.8 waa 49 49 newton baa kuu soo bixi doonta 49 newton dabcan kilogram lagu dhiftay meter per second square waa iska newton saa og tahay hadda waxaan raadi karaa marka keyda key waxay la mid tahay f loo qeybshay x waa sii dhigi kartaa key waxay la mid tahay f meeqaa kuu soo baxday 49 newton baa kuu soo baxday loo qeybshay x displacementkii 20 centimeter buu ahaa laakiin waxaad u qaybisaa 100 oo 0.2 meter buu kuu noqon doonaa then at the end you will find that 49 loo qeybshay 0.2 49 loo qeybshay 0.2 245 newton per meter 245 newton per meter very good practice-kan waa laba practice balkan ku qoran kan hore wuxuu leeyahay moollo ayaa lagu xidhay culayskiisu yahay 5 kilogram shayga hoos buu u jiiday moolladii iyo wuxuu ku siyaadiyey 20 centimeter wuxuu ku siyaadiyey 20 centimeter iminka waxaad samaysaa g-da waxaa u qaadataa 10 keyda soo saar g waxaa u qaadataa 10 keyda soo saar very good markaan soo saarno marka hore keyda waxay kula mid tahay f loo qeybshay x soo maa laakiin f t a m g a togan meesha f kugu qorantaa waxaa qori kartaa m g loo qeybshay x k waxay kula mid tahay m g waxaa isku dhufanaysaa laga wadaa 5 kilogram iyo g-da oo 10 ah markaa isku dhufatid waa conton newton loo qeybshay displacementkii wuxuu noqon doonaa 0.2 meter marka keyna waxay kuu noqon doontaa marka isu qaybiso conton loo qeybshay 0.2 250 newton 250 newton 250 newton I'm not sure haddii buuga meeshan ay tahay 20 centimeter but in case ay adaa number tahay processku waa sax tusaale labaad wuxuu yahay moolladii waxaa lagu xiray culays xoog ah 50 newton moolladii ayaa waxaa lagu xiray xoog ah 50 newton hoosa u jiida shaygaasi markaa 5 centimeter buu jiiday soo saar keydii jiida u qaado 10 markaad soo saarayso keydu simply waxay noqon doontaa forcigii oo loo qeybshay x key waxay ahaan doontaa forcigii imisoo noqonaa waa 50 newton waa cadi asagu markasta hadda waa kuu cadi aan ka wadaa doosan haddii maasa mg dhihi lahayd x-na 5 centimeter laakiin waxaa u qaybaysaa 100 waa 0.05 meter marka k waxay kuu noqon doontaa conton loo qeybshay 0.05 waa 1000 newton per meter waa 1000 newton per meter isla moolladii haddaati joog u xireeday ayaa iminka jifjif loo xiray waa la jiiday oo 11 centimeter waa la jiiday forciga la adeegsan laga rabaa marka keyta horuu soo saarta leewaa haddii isla moolada hadda joogjooga u xiran jifjif loo xiro 11 centimeter la jiido forciga la adeegsan imisoo noqonaa adoo keyda hore u yaqaana wuxuu noqonaa sidan forci waatuu kula mid ahaa kx force wuxuu kula mid yahay keydii waa taad hor u soo saarto waa 1000 newton per meter displacementiguna waa 10 centimeter laga 100 u qayb isaad meter uga dhigto waa 0.11 meter marka force wuxuu kuu noqon doontaa isku dhufato 110 newton 110 newton very good okay balaan horu wadno
hal step tusaalaha lixaad ayaa wuxuu leeyahay moollo xogma doorsoomaheedu yahay 400 newton per meter macnaha moollo u baahan 400 newton si hal mitir loo jiido ayaa shay culayskiisu 2 kilogram lagu xiray mooladiina waa la jiidayoo 12 centimeter baa la jiiday halkan fiiri meeshii ay kasoo tagtay 12 centimeter baa la keenay dibaa loo celsha marka waa la iska daayay haddii la iska daayadaa dib u noqonaysa markii dib u noqonaysa markii halkan marayso oo meeshii ay kasoo tagtay equilibriumka ay 7 centimeter u jirto acceleration imisoo noqonaya 12 centimeter guudaan la soo jiiday markii la deeyey markay dhex sii socoto halkan oo 7 ay u jirto meeshii kasoo tagtay imisoo noqonaya accelerationku marka hore accelerationka waxaan u baahan inaan horta formula u keenno waxaan soo dhahnay laba jeer force wuxuu la mid tahay markii x aan soo dhahnay Hooke's law la hore waxaan u ognahay sidoo kale Newton second law force wuxuu la mid yahay ma marka labadan formula isku mid waayo oo labada force isku mid ah moogtahay kx waxay la mid tahay ma marka waxaan xisaabi karnaa accelerationka laba dhinac m u qaybi marka waxay ku la mid ahaa doontaa kx oo loo qaybshay m very good marka accelerationka wuxuu ii noqon doonaa kda horaan u aqiinay oo waa 400 newton baa laysoo sheegay 400 newton per meter loo qaybshay m mask waa 2 kilogram midka moolada ku xiran weeyaan lagu soo dhuftay accelerationkii aan dhaho displacementiga aan isticmaalayo waa 7 ilaa markii 7 dhiman tahay equilibriumka laga doonayaa 7 centimeter laakiin u bedel 0.07 meter ku noqoto marka inta isku dhufato accelerationka maadaama left u socdo negative uu noqon doonaa dabcan maadaama left u socdo shaygu negative uu noqon doonaa acceleration wuxuu ku noqon doonaa haddii aad 400 u qaybi 2 waa 200 waxaa ku dhufataa 0.07 that's 14 it means -14 minuska wuxuu kuu sheegaa bis leeyahay in accelerationka uu left u socdo ilaa displacementka to the right ahaa in case haddii markaad halkan joogto 2 alif markaad joogto oo displacement oo 2 alif haddaad xisaabto xataa accelerationka xaaladaas wuxuu noqon doonaa accelerationku 400 waxaad u qaybinaysaa halkan formula aan ka hadlayaa k loo qaybshay m mt oo 2 eeday laakiin displacement x wuxuu ku noqon doonaa marka 2 alif centimeter oo loo qaybshay 100 waa 0.2 alif marka wuxuu ku noqon doonaa accelerationku 400 loo qaybshay 2 lagu dhuftay 0.1224 oo -24 waa midda uu practice aan ku siinayo oo page-ka dambe ku qoran marka waa idin salaamaya saaxiib aad u mahadsantihiin sorry for interruption waana mahadsantihiin meel walbood joog